السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارت qiimaha qaybaha badan subax wanaagsan waa Axmed Kadiye. Waxaan halkan kula wadaagayaa macluumaad kooban oo ku saabsan ciwaanada Facebook ee la xirayo ee in dhinteen camal dadka loo diiwaan gelinayo. Facebook in dadka ciwaanada laga xiro oo qof dhintay camal loo diiwaan geliyo waxay socotaa muddo 10 sano u dhow. 2016 waxaa ciwaanka laga xiray xataa oo inuu dhintay camalna loo diiwaan geliyay ninka Facebook iska leh Mark Zuckerberg la dhaho. ka baari kartaa Google asigoo remember in la saaray ciwaankana qaabkaas looga xiray. Wadanka Vietnam oo dadkiisa ay si waali ah u isticmaalaan Facebook, dadka waxa jiray waxay sanado ka hor xireen ciwaano badan oo dad Vietnam u dhashay sababo kala arag duwanaansho iyo wax la mid ah awgeed. Xataa Vietnam sheekadu waxay gaartay in dadka qaar ay sameeyaan shahaadooyin ama warqado cadeymo dhimasho ah oo $5 camal ay gadayaan, kuwaasoo laga sameynayo qofka ciwaankiisa in la xiro la rabo. oo sheekadu waxay xataa ka dhex heleen ganacsi. aniga kula hadlayo shakhsiyan Mars 2019 ayaa la isku dayay ciwaankayga in la xiro oo meyd camal loo diiwaan geliyo, laakiin ma aysan u suuragelin dadkii arrintaas sameeyay. emailkii waqtiga uu Facebook ay soo direen oo 3 sano ka hor wax la jiro ilaa weli inboxkayga ayuu ku jiraa. arrintan dhabtii mid fiican ma ahan. qof walbana madaxa ku hayo in ciwaankiisa sidaas loo xiri karo haddii uu maanta asiga dadka ciwaano ka xirayo iyo haddii laga xirayo. waayo qofka Facebook iska lahaa ayaa arrintan lagu sameeyay oo laga xiray. marka arrintu haddii aysan lahayn ka hortag ma leedahay daawo ayaa su'aale. waxa muhiim ah taas ayaan hadda ka hadlaynaa. marka sidee ayaad ciwaankaaga u badbaadsan kartaa? marka waxaa muhiim ah magaca Facebook kugu qoran iyo magaca baasaboorkaaga ama dukumeentiga kugu qoran inay islahaadaan. taariikhaha dhalashadana waa inay islahaadaan. taas waa mid muhiim ah. midda labaad ee muhiimka ah waxa waaye adigu waxaa samaysataa ciwaan labaad oo aanan la ogeyn samayso. ciwaankaas labaad Facebook wuxuu kuu ogolaanayaa in marka aad dhimatid kadib qayb settingka waxaa ku jirta haddaan dhinto ciwaankayga dhan hala xiro, iyo qayb waxaa ku jira haddaan dhinto ciwaankayga qof hebel ha maamulo oo halkaana uga daraya ciwaankiisa. asigoona ciwaankaaga dhex geli karin oo qofka kiisi isaga dhex jiro ayuu kaagii wax kusoo dhex qori karaa. marka waxay ka dhigan tahay ciwaankii labaad ah ka maamuli lahayd hadda sii samayso oo qaybta settingka dhexdiisa ku dhex xiro ciwaan kale aad adiga leedahay. ciwaankaas labaad aad adiga leedahayna cidnaysan ogaanin si aanan labada ciwaanba lagaaga dilin markaas. taasna waa dhankaas. qodob kale ee muhiimka ah waxa waaye baasaboorkaaga ama ID kaarkaaga ha ku aaminin qof aadan aamin ku qabin. sababtu waxay tahay ciwaankaaga markii loo diiwaan geliyo in uu meyd yahay, Facebook waxa ugu horeeya soo weydiinayaan dadkaas reportka gudbiyeen ee warqadda caddeynta dhimashada waxna meesha geliyeen. waxay soo weydiinayaan dokumeentigii iyo waxaas ay soo weydiin. qofka hadduu dokumentigaaga haayo markaa meesha ayuu diri karaa. kombiyuutarada Facebookna waxay aamini karayaan in qofkaasiba uu yahay ehelkaaga ama asxaabtaada wixii uu yahay geeridaadiina ay dhab tahay. sidaas ayayna ciwaankaaga kaga xiraa. marka madaxa ku haya in baasaboorkaaga iyo sharcigaaga qof aanan aamin ku qabin inaadan markaasi aadan u dhiibin. haddii lagaa xiro linkigan meesha ka muuqdo commentigana waa soo dhigi doonaa. linkigaas ayaa riixaysaa magacaaga iyo taariikhda dhalashadaada waxaa gelinaysaa. adigoo taagan ayaa ID kaarkaaga ama baasaboorkaaga kor u taagaysaa. qaabkaas ayaa ugu upload garaynaysaa. waxaana rajeynayaa in lagu soo daayo. laakiin haddii wax kaa kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa adoo xataa wax ku habaysan yihiin inaan lagu soo daynin. marka hadda waxa socda wax qurux badan maahan. waxaana soo xasuustay maraa ciyaalka xaafadda ahayn 2010 oo Facebook caadi ah u isticmaali jirnay in dhalinyarada ay ciwaanka iska report gareyn jireen. qaabkan dhimashada maahan, qaab kale oo disable iska saarayo. aniga xataa 2 mar ayaa ciwaanka laga disable gareeyay laga xiray waana soo diisay. laakiin hadda dadka waxaan sameynayo waa dad waaweyn. sababta ugu weyn waxay tahay kala arag duwanaansho wax la mid ah. waxaa meesha ay arrintu socotana meel qurux badan maahan, bal aan aragno meesha ay markaas gaarto. وإذن سلام يا وأحمد كثير خير إذن رجينا. ciao.